بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa caawa halkan isugu yimid wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London jaaliyada Soomaaliyeed ee Galmudug xubnihii ugu qaalisanaa haday rag ahaan lahayd haday dumar ahaan lahayd haday dhalinyaro ahaan lahayd ee matalayay jaaliyada Galmudug waxgaradkeedii oo dhan waxayna caawa isugu yimaadeen arrimaha ka soo cusboonaaday maamul goboleedka Galmudug ee gudaha Soomaaliya arintaas oo ay rabaan jaaliyadu inay ka soo jeediyaan baaqaas oo ah baaq ku socda arinta cusub ka soo cusboonaatay wadanka Soomaaliya caawa jaaliyadu waxay rabtaa rag iyo dumar dhalinyaro culamaa u diin sida ay u dhan yihiin inay baaqaas si wada jira u soo jeediyaan haddana waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeena waxaan ku bilaabanaynaa aayadaha quraanka ah waxaana noo akhrin doona Sheikh Abdullaahi Axmed Gaas bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على الهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. waxaan rabaa hadda inaan waco wakiilka jaaliyada Galmudug Maxamed Ciise Jaamac Jilbey kulankan xambaarsan culayska ka jira dhulkii Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana Galmudug ayaan isugu nimi caaway wixii Ilaahay naga garansiiyo inaan ka niraano dhammaan anagoo isku duuban rag iyo dumar caaway waxay noo tahay habeen culays leh habeen xambaarsan inaan ka hadalno cod dheer iyo cod gaaban intaba culayska lagu hayo dawlad goboleedka Galmudug faragelinta lagu hayo dawlad goboleedka Galmudug u kuurgalida xaaladda ay ku jirto maantay ayadoo soo martay culays rabaaniya oo ah abaaro isdaba joog ah oo aan kala go' lahayn ayaa haddana waxa uu si darsamay wiiqitaan cadaadis xurmad darro ixtiraam la'aan iyo kala faquuq iyo kala qoqobid iyo kala gogoyn dawladda halkaas ka dhisnayd ee ummaddu ay ku naaloonaysay ee ahayd dawlad curdana dawlad isku tashatay dawlad dadaalaysa doonaysay inay hore u socoto ayaa waxaa ku dhacday waxyaabo aan ka indhasaaban weynay waxyaabo culays nagu noqday waxyaabo foolxumo ah faragelin cad oo bareer ah oo loo geystay marka warkii waa furay waxaan rabaa inaan arrinkaas isaga qof kastaba garashadiisa oo xadgudub lahayn aflagaado lahayn deelqaaf lahayn uu ka muujiyo waxaan leeyahay Galmudug waa Galmudug Galmudug waa jirtay Galmudug waa jirtaa Galmudug waana jiri doontaa hadii la haydmo ciyaarna ku baabi'i mayso waxaan rabaa mas'uuliyiinta halka jooga ee reer Galmudug wada shaqayntoodii iyo wada jirkoodii iyo walaaltinimadoodii iyo waxqabadkoodii iyo iskaashigii iyo horumarkii aan hawsha ugu idmanay inay noo wadaan oo noo hayaan haddii ay dhici weydo hawshaas waxaa gacanta ku haya mas'uuliyiin ah xildhibaano aqalka sare iyo aqalka hoose iyo xildhibaanadii gaar ahaan reer Galmudug ee gudaha joogtay ayaga ayaan u idmanay inay aqalka saliimka ka shaqeysiyaan inay wax kala hagaajiyaan inay codkooda cadeeyaan annaguna codkayga waa cadeyn doonaa waxaan rabaa hadda inaan u waco boqor Cabdullaahi inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka boqor Cabdullaahi ku soo dhawow salaanka bacdi waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka xafladdan soo qaban qaabiyay aashan soo keenay annagoo hal ujeedadan ay tahay dhibaatada Galmudug lagu samaynayo inaan baaq soo saarno wada jir ah annagoo cidna ku xadgudbaynin laakiin ka xun waxa Galmudug lagu samaynayo Galmudug waxa ogtiin dhibaato badan ay laga soo madhismadeedii in dad badan lagu waqti dheer ay qaadatay ugu dambaystina loo dhisay maamul aad loogu waqti dheer qaatay maanta markii inuu si fudud oo macno lahayn lagu baabi'iyo waa ka soo horjeednaa ma rabno haddii ay ahayd dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay ka shaqeyso sidii maamulkaas oo
loo badbaadin lahaa iyo maamulada kaleba maxaa yeelay haddii maamulka galmudug uu meesha ka baxo waxaa la hubaa soomaaliya dhibaata inay soo gaarayso marka waxay galmudug ka hadlaabo soomaaliya ka hadlaabayaan galmudug waxaa la rabaa marka dowladda federaalka oo culays badan laga tabanayo culayskaas inay ka dayso kuna bedesho maslaxad iyo inay la shaqayso maamulka ka jira galmudug oo hadda uu madaxda ka yahay axmed ducaale geelxaab madaxweynaha qolada kaloo la shaqaynaysa oo hadda khilaafka uu dhex maran waxaan u rajaynaynaa inay candhuftooda gadaal u liqaan u fakeraan galmudug inaysan ku baabi'i karin 2 qofood ama 3 qofood oo ka gadwada xaaladda markaa jirta laakiin waxay ku fiican wax kastaba in laga wada hadlo miiska wada halka la isugu yimaado si nabadgelyo loo xalliyo qof kasta wax tabanaysana dadka waxaan u malay loo kala turjubaani waa meelaha wada joogaan inay si qabow warkooda iyo maslaxadda u dhamaystaan ayagoo la kaashanaya wafdiga qaaliga oo ka socda 2 gole oo xildhibaanada waxaan rajaynaynaa inay go'aan fiican oo maslaxad ay ku jirto oo galmudug iyo qaranka badan ugu jirto inay ka dhalan doonto meeshaas waxaan ku baaqaynaa in la xalliyo arrinta galmudug si loo badbaadiyo maamulkaas iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa hadda inaan waco xaaji xirsi oo ah oday rugcaddaa ah oo dadka jaaliyadda galmudug dadka ugu qaalisan ka mid xaaji xirsi ku soo dhawow waxa ka soo yeeraya meesha la yiraahdo cadaado waxaan ku taageersanahay in ay xigsadaan hawlahooda ay xigsadaan oo ay waxa la yiri cidna la isma hirsiyo raganimada la isma hirsiyaali wax la isu dhiiba ma aha marka ree cadaado iyo ree galmudug cadaado waa meesha la degan yahay waxaan la soconnaa dadka inta badani waxaan aan qabna inay qabaan marka sidaa darteed waxaan leenahay maalin walba in wax la dumiyo waa fududahay laakiin in wax la dhisaa way adag tahay marka sidaa darteed waxaan u baahannahay shacbiyadda waa inay dadka madaxda ahi ay tixgeliyaan shacbiyadda wax doorata haddana waxaan rabaa inuu dhiibo caaqil xasan cilmi kaarshe arrinta caawa aan isugu nimid waxa weeye dagaalka qaawan ee aan naxariista lahayn ee burburinta galmudug ay ku soo qaaday dowladda federaalka ah arrinkaas waa ka xunnahay waanan cambaaraynaynaa runtii waxaan leenahay marka dowladdu wax badan oo badan baan waxaan ugu soo istaagnay taageero iyo soo dhoweyn iyo ixtiraam annagoo ka rajaynaynay inay guul iyo baraaro gaarsiiyaan ummadda dooratay oo leh shacab iyo baarlamaanba oo aan u kala harin bilcakis beddelkii waxay ka dhigtay 2 nin ee u madaxda ah galmudug kana soo jeeda deegaanka galmudug oo hogaamiya dowladda federaalka ah inay yiraahdaan aan ka bilowno aan burburino maanta abaartu galmudug bay ku badan tahay maamulada kale xoogaa way ka weegsan tahay waayo colaad iyo abaar baa haysa marka jaanis waxa loo arkay inay fududahay burburinteedu laakiin sidaa ma aha waxaan ugu baaqaynaa dawladdu si degdeg ah arrintaas inay uga noqoto inaysan iska horkeenin ummadda inaysan baabi'in dadka ay mas'uulka ka tahay galmudug anigu waxaan ka mid ahay raggii wax ka soo dhisay oo u fadhiyay halka sano magaalada Cadaado oo hadda sida ku meel gaarka ah loogu shaqeeyo oo xarunta ku meel gaarka u ah halkaas sano waxaan isku celcelinaynay inay cagaheeda ku istaagto oo reer galmudug ay u istaagaan jiritaankooda iyo maamulkooda iyo sharafkooda iyo diintooda inay ku difaacdaan haddii ilaahay idankeeda leeyahay arrinkaas dhib badan baa laga soo maray 4 wiil oo guri la geliyay iyo lacag meel la soo dhiga iyo way ka qodad dheer tahay wax lagu burburin kara maaha anigu waxaan leeyahay dib ha looga noqdo waxa marka la ogaado inaan laga jabagaarayn wanaag ha lagu bedelo meeshii xumaanta lagula soo beegsaday galmudug taladaas waxaan siinayaa federaalka dawladda 2 nin oo madaxda ah aad ayaa u mahadsantiin waxaan rabaa inaan u bayro dhinaca gabdhaha hindi qalab xoor
gabdho badanoo wax ku oola ayaa caawa halkan fadhiya. dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay dib u dhis samayso, inay wax dumiso kama codsanayno. waxaan ku leeyahay dowladda federaalka oo farmaajo madaxda u yahay dhaantadii iyo mashxaradii aan kugu soo dhaweynay waa inay kugu daadegtaa. gobolkan waa gobolkii beri lagaa soo dooran lahaa. maxay ahayto Soomaali waa inay sinaan iyo cadaalad u samaysaa. erayada aad halhayska ka dhigateen oo sinaan iyo cadaalad ka keenteen oo ay ku qorneed dadkii ku qortay erayada maxay ahayto nabad iyo nolol darbiyada ku qortay ayaad waxaad u geyseen dareen iyo colaad. ma idinka yeelayno. annagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed, one nation, one country, one language, one religion. haddii aad mataqaanaa intaas waxaan lahayn dad dhalinyaraha tiin ummadaad isku keeni doontaan. haddaad isku keeni weyseen ilma adeerayaalow waddankayga dagaal dambe iyo trouble dambe hanaga gelinina. adinkoo maxay ahayto aalyar waa inaad iska casishaan oo iska tagtaan. haddana waxaan rabaa maxamed januune inaan ku soo dhaweeyo. maxamed januune walaal ku soo dhawo. waxaan ognahay mar alla markay dhacday in uu yimaado horumarinta in laga shaqeeyo sidii istaydiyaduba sameeyeen inuu heshiisyo caalamiya raadiyey si uu u nooleeyo dadkiisa iyo deegaankiisa. waa looga horreeyey keligiis ma ahayn. 2 bilood iyo 3 bilood iyo 20 maalmoodaa laga sugaya dowladda ku meel gaarka ah markay khilaafka khaliijka u dhacay kadib markay ka hadli waayeen oo ayagu say doonaan ay yeelaan cid walba way ishay weyse. kuwa ka horreeyaa aaday heshiisay la galeen dekeday ka samaysteen inay u dhisaan. sidoo kale statekan curdanka oo aad ogeydeen in dhibaato badan laga soo maray hadduu tallaabo qaaday. tallaabo markuu qaaday see u qaadi karaa ayaa lagu xanibay. annagu waxaan leenahay baaqaan caawa la soo jeedinayo isagoo qoraala ayaa la akhri doonaa. laakiin mabda'iyan waxaan isku waafaqsannahay shirar badan oo soo dhaca hadda ka hor waxay ku soo gunaanadkii uu noqday in intaan oo isugu jirta rag iyo dumar, dhallinyaro iyo odayaal, culamaa uddiin inay si khaasa loogu daayo barnaamijka si ay u gudbiyaan baaqaas ayagoo ka mathalaya dadkii u dhashay deegaankaas. walaalayaalow sida akhyaartii iga horreysay rag iyo dumar ay sheegeen annaga dowladda laftigeeda dadkii u sacab tumayaan nahay, dadkii dejiyayaan nahay, dadka gogasha u ahaan nahay. galmudug waxay leedahay ama stateku wuxuu leeyahay ama dowlad goboleedku wuxuu leeyahay xildhibaano ka mas-uula oo ilaa heer federaal uu leeyahay oo ayada lagu doortay. dadkaasi federaalkay jiraan waa inay degaankooda iyo dadkooda sida hadda dhowrka nin oo si horudhaca u yimid ay wax u qabanayaan ay u joogaan waa inay ayaguna helaan intaasoo kale. waa inay gebigood soo guuraan ay muqdisho ka soo tagaan oo halkii ayaga shalay lagu doorto qof walba 51 xubnood ay dooratay waa inay dib ugu soo noqdaan. waa inay dadkooda dhisaan. waa inay dadkooda u soo noqdaan. waxaa kaloo jira 90 ku dhowaad xildhibaan ayuu leeyahay stateku. in 10 nin ama 5 nin ay tiraahdaa madaxweynihii waa ka qaadna xilka yani wax laga xishoodo waaye dadka nooca sameynaya sharcigu wuxuu ku qabaan u daynaynaa anaga. warka intii badan waa la yiri kelmadaydu waxa weeye in dhaqaalaha dalka lagu burburinayo ammaanka dadka ha lagu sugo. dowladdii shacabka waa tii la baxday aawa shacabkii ammaankiisii. waxaa kaloo ku soo xirayaa dalka yaa la burburin. haddii la burburiyo waan soo aragnay oo dib looma soo celi karo. maantana intii horeyto waa ka sii liidataa oo burbur haddii uu dhaco waa midaa dib laysku soo noqonayn. burburka ka dhacay galmudugna si degdega ayuu wax u soo geli karaa magaalada muqdisho iyo viila Soomaaliya waana ka sii gudbi karaa. yaa marnaba burbur dambeeto dooni mayna naga joojiya fallan burburka. hadda waxaan rabaa inaan waco Sahre Cilmi Kulmiye si erayo kooban ay uga tiraahdo iyaduna halkan. meeshan waxaa isku imaanay annagoo ajaaliyada galmudug. sababtii isku kaaya keentana waa culaabaha ka soo kordhay gobolka mudug magaalada Cadaado
maamulka galmudug waxaan ku bixinay waqti badan dhaqaalo badan maskax badan ilaahay mahad ha ka gaarto waa dhismay madaxweynu yeeshay baarlamaanu yeeshay cod waxaa lagu baarlamaana loo dhisay waxaa loo dhisay one man one vote baarlamaankii inay ninka iyagoo doortaan iyadoo loo jeedo mas-uul kasta oo soomaaliyeed wuu qaldami karaa meel kastuu joogo qalad hadduu jiro waxaa fiican miiska wada hadalka la imaado oo lagu xaliyo laakiin waxbaa la duminayaa waxa si loo dumiyo sahlan yahay laakiin sidoo loo dhiso way adag tahay haddana waxaa farta lagu fiiqayaa dowladdii dhammayd ee qaranka ee dowladdii federaalka ahayd mudane maxamed farmaajo uu ahaa maaragtay maxamed cabdullaahi farmaajo uu ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa khayre haddii waxaas la sheegayo run yihiin ood gacmaha kula jirtaan annaga waxaan xilkeeda kugu dhiibanay oo idiin aaminay oo shalay idinkugu soo dhaweynay waddanka oon ugu faraxnadaana dadka qurbaha joogo inaad ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka daashada 30 sano ee abaaro leh ee colaado leh ee tafaraaruq leh ee dhaqaale darro leh ee caafimaad la'aan leh inaad wax ka qabataan not meel nidaam ka jira in la burburiyo marka waxaan leeyahay dawladda haddii waxaas la sheegayo runtahay dawladooy waxaan kaaga fadhinaa inaa wixii wax hagaajisid inaa waxa laysa kaagama fadhino dadka maaragtay galmudug dega waxaan leeyahay war dawladdiina hadday qaldan tahana u sheega hadday saxan tahana taageera gacmahana isqabsada haddii aan nahay reer galmudug nama qabato dawladda federaalku in ay nagu cunaqabatayso dhaqaale inaysan siin haddii aan dhaqaale doonanayna in ay ma aragtay muxuu ahaa ay tiraahdo madaxdiinnii baan ridhayaa oo wax ma doono kartiin annagoo arrinkaasi waan ka xunnahay madaxweyne xaaf arrin uu keligiis wax loogu dhibay ma ahan reer galmudug oo dhan baa wax loogu dhibay inaanan dad xor ah oo haddii la cunaqabateeyo oo dhaqaalihii laga cunaqabateeyo aan meel kaleta wax u doono karin in nalaka dhigo raalli ka noqon mayno kamana nihin arrintaas waan ku ayeysannahay madaxweyne xaaf meel allaala meeshii uu wax uga baadi goobi karo ciidankii aan ogaa dhibkiisa iyo kharashkiisa iyo howlihiisa iyo maamulkii inuu dhaqaale u baadi goobo arrintaas waan ku garab taagannahay waxaan leeyahay anigu waa ku adkaynayaa horta ha laysku wada yimaado maanta wax qarsooni ma jiraan reer galmudug meel ay joogaanba maanta waxa cadaada ka dhacahaya iyo waxa ka socda waa u jeednaa saqiiri wa kabiir maanta nin looga sheekaynaya ma jiro nin gaar u leexa karaa ma jiro ha laysku wada yimaado yaan cidna laga celin ciddii kasta ha timaado waxaan ku yidhi kulligan waa u jeednaa ninkii damca inuu wax qalloociyo warka ku dheeraamahayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan waco abukaati cabdulqaadir axmed nuur boqorka beesha reer xaaji ku soo dhowow runtii dowladda federaalka oo aan iminka labada mas-uula ugu sarraysa waa dad sideenaan oo kale ku noolaa dibadda marka waxaan dhihi lahaa magacii jaaliyadda dibadda yaanan xumaynin yaanaan noqon maadaama uu yahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii ugu horreeyey ee diyaasbaraha marka waxaan leenahay tusaale xun yaan u noqonin burburinta maamulada sharciga ee soomaaliya ka jira qodobkaa weeye qodobka labaadan ku daraya waxay weeye xildhibaanada labada gole ee galmudug ee jooga xamar iyo iminka cadaado way ammaan bay mudan yihiin qolada cadaada joogta sababtoo waxay tahay mas-uuliyadoodii way guteen waxaan leenahay xildhibaanada labada gole ee galmudug waa inay ka shaqeeyaan in aan maamulka la burburin waxaan rabaa inaan halkan uga waco wakiilka dowlad goboleedka galmudug cismaan cabdi raage xooshow oo halkan aan ku soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا قدوميها جالية قلمدوك UK مدن محمد عيسى جامع لمان كسو غيب قلياشة قارهان أضياشة أو عاوة جوغا iyo gabdhaha oo aan la'aantood wax soo kala jirin waxaan rabnaa inaan halkan ku cabirno dareenka shacabka reer galmudug ee ku nool UK ay qabaan inaan idin muujino oo aan ka soo diyaarinay bayaan
4 qodob ah iyo recommendation oo la socdo tala soo jeedin insha Allah taala waa noo akhrin doonaa waxaa noo akhrin doona gudoomiyihii hore ee degmada Gaalkacyo mudane Bela Diini Cali laakiin intaan u yeerin ka hor waxaan rabaa inaan qodobo halkan aan ku qornayn aan xuso annagoo ka turjumayna dareenkaas yaa waxaan iloonay emotion ah inaan u mahad celinno oo carabka aan ku balballaarino maamul goboleedyadii taageeray mowqifka ay qaadatay dowladda Galmudug labadii aqalka hoose iyo aqalka sare ee deegaanka u dhashay ee qaaday mubaadara ama initiative inay arintaas gacan ka geystaan xasiloonida in ka dhaliyaan sidoo kale dowladda aan dhaliilayno lafteeda waxaan u mahad celinaynaa wasiirka arrimaha gudaha beeninta oo beeniyey warqadii faalsada ee laga soo saaray xafiiskiisa ama wasiir dowladda intaasoo dhan markaan sheegno waxaan qirsannahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweyne annaga aan dooranay laakiin aan ku dhaliilayno dariiqii aan u dooranay inuu ka leexday rabnana inaan ku celinno dariiqii inuu maro ee aanu dagaal iclaaminayno caawa waxaan rabnaa inaan ku celinno dariiqii ay lahayd oo dowladnimada aan qaadanayna waxa waaye federaal waxaan ku qaadanay Embagati shirki ka bilowday Eldoret markii aan dhahnay 21 sano ninkii joogay dhaqankii aan ka baranay haddii reer loo dhiibo reerkiisii yaa xukuumadda qaadanayo dadkoo dhan waxaa role model u ah reer diini marka haddii reer qabsadaba xukunka ayaga qaadanaya xukunka naloo qaybiyo ceyrinka naloogu qaybiyo marka waxaan ku qaadanay gobolaan ku qaadanay deegaan baarlamaanka iyo dowladnimadana waxaan ku qaadanay 4.5 marka qabiil walba in la qanciyo marka meel 13 qabiil ay degan tahay in la dardaro iyo meel ay degan yihiin qabiilo aad u badan khayraadkii dalkan oo yaallo Hirshabeelle oo sida lagu baabi'in ay tahay gardarro waxaan codsanaynaa dowladda inay ka waantoodo dhaqankaas xun dowladahaasna ayna faragelin intaa markaan ka baxo waxaan ku soo dhaweynayaa bayaankeenni aan ku cabirayna dareenkeenni oo aan ku soo jeedinayna baaq asagoo kooban oo asluubaysan inuu noo jeediyo mudane gudoomiyihii hore Bela Diini Cali ku soo dhawo warkii waa la dhameeyey intii la oran lahaa waa la yiri laakiin halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo bayaanka ay soo saartay jaaliyadda Galmudug ee ku nool UK waxaan ka xunnahay in dowlad goboleedka Galmudug uu soo wajaho dagaal siyaasadeed oo ujeedadiisu tahay burburinta hanaanka maamuleed ee Galmudug ee ku dhisan qodobada dastuuriga maxaa dhacay yaase ka masuula kow hoggaanka sare ee dowladda federaalka ayaa faragelin toos ah kula jira iyagoo si aan waafaqsanayn sharciga u adeegsanaya dhaqaalihii loogu talagalay in lagu horumariyo maamulada iyo deegaanada shacabka Soomaaliyeed iyadoo dhinaca kale maamulka Galmudug waqti dhow la aasaasay uu u baahan yahay una baahnaa kaalmooyin iyo taageero uu ku hirgeliyo mashaariic fara badan oo hor yaala sida sugidda ammaanka adeegga arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin biyaha waxbarashada caafimaadka iyo ka hortagga abaaraha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada Galmudug sanadihii la soo dhaafay 2 dib u heshiisiinta waxaa muuqata in dowladda federaalku inaysan taageersanayn sii wadidda hanaanka dib u heshiisiineed ee Galmudug ku dhisan tahay iyagoo isku dayay inay kala furfuraan qaab dhismeedkii iyo isku duubnidii bulshada iyo hoggaanka siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug 3 waxaa kaloo hoggaanka sare ee dowladda federaalku ku soo rogeen cunaqabatayn iyo diidmo qayaxan in la duldhigo barnaamijyadii horumarinta iyo tan miisaaniyadeed ee loogu adeegi lahaa dadweynaha Galmudug 4 waxaa kaloo dowladda federaalku ka baaqsatay inay taageerto ama sahasho dib u heshiisiintii ay u samaysnayd dowlad goboleedka Galmudug
ee u dhaxaysay galmudug iyo ahlu sunna tala soo jeedin marka haddaan nahay jaaliyadda reer galmudug ee ku nool UK oo ay hogaaminayaan labada guddoomiye waxaan tala ahaan u soo jeedinaynaa haddaba iyadoo la xeerinayo qalooca siyaasadeed iyo culayska isi soo taraya oo ka imaanaya dowladda federaalka ee ku wajahan galmudug waxaan ku talinaynaa qodobadan soo socda kow in faragelinta qaawan ee lagu hayo dowlad goboleedka galmudug la joojiyo iyadoo si buuxda loo garab istaagayo hoggaanka sare ee dowlad goboleedka galmudug ee hogaamiyaha u yahay mudane madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf labo in loo helo xal waara khilaafka taagan maamulka dhexdiisa iyadoo loo raacayo wada hadal isfaham iyadoo loo kaashanayo hay-adaha sharciga iyo kuwa dhaqanku mudan yihiin in ay ka wada qayb galaan xallintooda iyo daaweyntooda iyadoo loo marayo dastuurka dowlad goboleedka galmudug saddex in hoggaanka sare ee dowlad goboleedka galmudug la yimaadaan maamul wanaag iyo maamul wadaag ku dhisan cadaalad iyo sinaan hufan oo waxtar u ah dhammaan deegaanada hoos yimaada galmudug afar waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug sida odayaasha dhaqanka xildhibaanada heer gobol iyo mid federaal inay ka qayb qaataan horumarinta xasiloonida iyo goodi socodka dowlad goboleedka galmudug isla markaana garab istaagaan hoggaanka sare ee galmudug shan waxaan ka codsanaynaa in beesha caalamku ay fiiro gaar ah u lahaadaan habdhaqanka dowladda federaalka ee ku wajahan dowlad goboleedka galmudug ayna ka taageeraan galmudug dhinaca nabadaynta bulshada baahinta maamulka iyo arrimaha dib u heshisiinta iyada oo dhul ka mida deegaanada galmudug ay weli gacanta ku jirto gacanta al-shabaab sidaas awgeed waxaan baaq u soo jeedinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya lacagta ay rabto inay ku burburiso inay ku xoreyso deegaanada ka maqan galmudug isla markaasna dadka ay dahatay abaartu ay wax ku taraan wa ma santiin wabillahi tawfiiq